aynu ka horeyna Soomaaliya ayaa ka qayb galaysa dholatus uu turkiga hormood ka yahay oo ay sameynayaan ciidamada badda wadamada islaamka ugu yaraan 7 dal ayaa la filayaa inay ku biiraan dholatuska ay sameynayaan ciidamada badda turkiga oo ka dhacaya bariga badda dhexe iyo sidoo kale militariyaanka halkaas oo uu turkigu ka wadaan baaritaan amura dhaliyay oo dhanka shidaalka dhulatuska ayaa waxa la yiraahdaa gaashaandhigga badda dhexe waxa uu noqday mid caalami ah iyadoo horay ay uga qayb qaateen Pakistan iyo Urdun waxa iminka ku soo biiray dalal ay ku jiraan Algeria, Georgia, Albania, Serbia, Libya, Lebanon iyo Tunisia sida ay daabacday wargeyska maalinlaha ee ka soo baxa wadanka Turkiga bishii November ee sanadkii 2019 waxa dhulatuskaasi soo xaadiray ilaa 40 dal oo ay ku jiraan Serbia, Brazil, Georgia, Italia, Kuwait, Lebanon, Qatar maraakiibta dagaalka ee dalalka Pakistan iyo Bulgaria, Romania, Mareykanka iyo Urdun ayaa sidoo kale ka qayb galay dhulatuska gaashaandhigga badda dhexe ayaa ka dhigaya tan iyo sanadkii 2006 kaas oo loogu talagalay in sare loogu qaadayo diyaarsanaanta ciidamada badda ee halisaha ammaanaha turkiga ayaa ballaarinaya saameynta iyo joogteynta badda kala Black Sea, Red Sea iyo sidoo kale Mediterranean-ka Somalia ayaa kamid ah meelaha uu turkigu isha ku hayo asagoo isku duwaya xulufo ka kooban dhowr dal oo islaam ah si loo helo istiraatiijiyad dhaqaale iyo mid ammaan balse waxa xagal daacin ku haya madaxda dalalka kale ee islaamka oo loo adeegsanayo fashilitaanka qorshaha aysan jeclaysan hormoodka reer galbeedka dawladda turkiga ayaa danaynaysa inay saameynta dunida ay ku leedahay dhanka ciidamada badda inay sare u qaado iyadoo sameynaysa xulufo muslimiin ah oo ay ku wajahdo qataraha dunida ka jirta Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa laba jibaaraya awoodda ciidan iyo mid dhaqaale ee wadankiisa si uu